بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ورئيس كوبان لا يلانيا وريه محمد أويس مودي بقرك برتمها محمد أويس مودي بقرك برتمها waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 1958 hase yeeshee waxa uu in muddo 4 sano iyo barku dhawaada ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Itoobiya dhawaanayana laga soo daayay waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada Muqdisho aad baan ugu faraxsanahay Aweys in aan maanta Muqdisho isla joogno ku soo dhawaraysiga aad baad u mahadsantiin maamulka iyo madaxda iyo shaqaalaha iyo saxafiyiinta Hemtobel waxaan leeyahay aad baan idin soo dhaweynayaa waxaad marka hore iga warantaa bal xaaladaada caafimaad iyo xaaladaada guud ahaan si kooban marka hore caafimaad ilaah baa laga helaa caafimaadkaygu hadda wuu fiican yahay waayo waxaan ku faraxsanahay hawada aan joogo iyo dalka aan joogo iyo dadka aan la joogo oo dhammaantood kuwii qalbiga aan ku hayay marka xanuun kastoo yahay wuxuu idaayay markaan dalkaygii ku soo laabtay waatahay dabcan ani adigu 2010kii Addis Ababa waa isku aragnay xaafadda la yiraahdo Ardi Safar inkastoo anigu xaafad kale aan deganaa waxaad iga bilowdaa bal maalintan ka soo tagay Addis Ababa aan isaga soo tagnay kadib waxaan ka war helay in lagu xiray lagu xukumay xabsi aad gashay marka waxaad iga bilowdaa bal sida ay wax u dhaceen iyo waxyaabaha lagu eedeeyay iyo waxaad kala socotay waxa la isku eedeeyay horta meesha ma jirin qaladaad dhacay oo hadda aan taaban karo leeyahay qof Soomaaliyeed ayaa ka dambeeyayna ma jirin laakiin waxba la sheegay oo la yiri waxba dhacay wixii dhacay waxay ahaayeen koronto qaraxday oo baashan baalaha loo yaqaano oo korontada kaydisa roob weyn baa daayay roobka markuu daayay wixii dhacay baa markaas kadib yani si kale loo qaatay marka waa la baaray dadka kulli dhan waa la soo qabtay dad badan baa la qabtay oo la yiri wax baan baaraynaa yani kulli markii dambena yani waxa la yiri mataqaanaa dadka meesha deganaa meeshan wax ka dhaceen waa la soo qabanayaa sidee baa lagu soo qabtay waxaana loo geysto dhibaatana ma jirin waana la weydiiyey see wax u jiraan anigu xambihi anigu waxaad ma arkin nin yiraahdo waxaas baan arkay ma jirin marka dhammaantood dadka meesha isugu yimid xabsiga aan kula kulmayna hal qof oo garanaya ma laha kan wuxuu leeyahay aniga jannaya imadkan wuxuu leeyahay 3 bilood kadib kan wuxuu leeyahay dukaan baan iibinaya laga soo qabtay kan wuxuu leeyahay waxaan ka mid ahaa in dadka mataqaanaa iibiye maxalliyada baalka leeyahay maamuriga iyo korontada iyo waxaan joogaa dukaan lagu iibiyo nin walba meesha ku bartay magacadooda asxaabta cid aan isgaranayna ma jirin marka waxay ahayd meesha meel la isku bartay ahayd oo dhalinyarada la isugu keenay mooyaane wax dhacay ma jirin saaxib kadib maxaa lagu xukumay marka xukunku waa iska jiraa xukun ilaahay watana waa jiraa laakiin ilaahay ma aqbalin xukunkaas sababtoo ah Allah subhanahu wa ta'ala uu dadaalay isaga waxaan iga qabtay xukunka la igu qabtay waxa weeye adigu ninba waxba lagu xukumay mid 20 sano mid 7 sano mid 15 sano mid 8 sano mid 6 sano aniga waxay igu yiraahdeen waxaan ka dhimaynaa 3 sano bareejara qabto oo taqaatiirta loo soo gudbiyeen inaad maskaxda xoogaa bareejar ka qabto 3 bilood waxaan 3 sano waxaan ka dhimaynaa beedsabka waxa la yiraahdo cunto lagu keeni jirin 3 sano waxaan ka dhimaynaa markii ugu horeysay halkaan timid wax wanaagsan bay ii sameeyeen runtii way ii naxariisteen inaan waxba halaynin way ogaayeen kadibna way soo daayeen oo dad fiican weeyaan waatahay markii ugu horeysay aad xabsiga tagtay ee aad ogaatay in lagu xukumay maxaad la kulantay alla kulmay markii hore xabsigu ma aha wax dadka lagu ciqaabo xabsigu waa wax dadka lagu hanuuniyo waayo kaliga markaad meel ku jirto waxaad dareemaysaa ehel la'aan tandiban la'aan xaas la'aan caruur la'aan yani waxyaabo badan baad dareemaysaa marka taa macnaheedu waxa weeye dibi dhaaf baan u arkaa saaxib markaan soo koobo maxaa maskaxdaada ku soo dhacay marka ay jaceelkiisa salaadii oo badsaday oo maalin walbaba ilaah baa bari jiro 4 saac salaada ayaa waxay mudaanta koowaad ee wax ii qabatay cuntada ka war cuntada way fiicnaadoo bariisna way sii jireen baasha la yiraahdo siigada ay u yaqaaniino cuntada loo yaqaan hilibka iyo maraqana way sii jireen
canjeeradana wayna sii jireen rootiga wayna sii jireen xagga cuntadana runtii way ku wanaagsanaayeen inkastoo usbuucii baa hal mar la dhiibayaa hilibka la cuno inta kalena waa bariis iyo caani runtii aad bay u fiicnaan qabayska way fiicnaan shaawarayna siiyeen aan ku qabaysano oo waxayna siiyeen sariiro caalami aan ku jiifano takhaatiirtu way ku kor taagan tahay mar kasto maalin walba yaa caafimaad aadaya la leeyahay waxaa kaloo jiray in yacni isboortiga cayaari karto yacni waxyaabo badan oo adiga aad u madax bannaantahay noo fasaxeen runtii maxaa ku madadaalin jirtay marka socodkan ku madadaalin jiray waa ordi jiray un bur orodkaas iyo socodkaas iyo lugaha iyo mataqaanaa qabowga badanoo faraha badanoo meesha ka jira ayaa xoogaa kuleelkaas baan rabay waa ordi jiray isboortiga un baan iska jeclaa mararka qaar shimbiraha iyo cuntada taa wacnaheedu waxay ahayd marka meeshii ku raagay oo ilaahay mataqaanaa casaawajalla waaya salaatuleilka markaan tukadana ina man calayha faanin wayabqaa wajhi rabbika duljalaal walikraam inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan liyagfira laka allahu ma taqadama min dambika wama taأkhar wayatima nicmatahu calayka wayahdika siraatan mustaqiim wayansuraka allah nasran casiiz xasbuna allah wanicma alwakiil baa dhihi jiray habeenkii waagaa igu baryi jiray markaa salaada subax markii aroortii aan wax cunno oo quraacno qaadada intuu dhaxle markii la cunteeyo wixii la reeboo dhan oo isugu jira bariis isugu jira waxyaabo kale canjeero wixii oo dhan baa intii aan isku soo qaado saxaamankii wax lagu reebay ayaan bac intaan kusoo shubo ayaan intaan fadhiistaan bac weyn keenan fidiyo ayaan ku shubi jiray markaasaa intaan ku shuba shimbiraha meesha aan degannahay korkeeda soo korayay ayaan labyariga korkiisa baan ku shubi jiray markaasa waxaa imaanaya saacaddu markay tahay adigu xilliga muqdisho 3 galabnimo ama 9 saac wixii shimbiro joogay baa meesha isugu imaanaya bariiskiiyo fariisha wixii kaleeto canjeeradii baa cunayaan tii wax cuntaba geedkay ku noqonaysaa kor way soo degaysaa wax kale cunaysaa midka cusbaa waa soo degaya markaasay mararka qaarkood shaqadayda ilaa 4 sano shimbiraha wax siinaya markaas waxaa arkaysaa mararka qaarkood qof baa ay arkayaan ama dad isbursanaya way cabsanayaanoo shimbirihii hal mar bay kacayaan markaasaa le ilaahow sida u kaceen ii kiciyo meesha iga kaxee baa dhihi jira wallaahi bilaahi tallaahi shimbirahaas baan maalin walba ilaahay ka bari jiray ayagaas ku madadaalinaysa wax waraysiga ma lagula yeelan jiray ma xagga siyaasadda iyo diblomatikada nin journalistayna ahaa way ogaayeen weligay ilama kulmin oo ima dhihin saan ma tahay saan ma jirtaa saan hal mar oo ila kulmeen waan la hadlo waxaan anigu nin fanaana nahay nin wariyaha nahay nin waxaan nahay dhalinyaro biisaani caana la yaqaan anaa dhaawaca ayaa inta imid caafimaad baan u imid caruurteyda austraaliya ku maqan ayaan rabay inay iqaadaan haddee cudur iyo caashiq keebaa culus baa ka dhacay marka waxaa weeyaan anigu waxaa muhiimaan waxaan ahaynna ma noqonayo marka intaa dilina hubsada waayo baara waxaan nahay etoobiya sidaad ku baxdo sidaa lagu qabto way sahlan tahay laakiin sidaa ku soo baxdo way adag tahay wax jirdila ma lagu geysto waxay ku fiicnaayeen jirdil looma geysan waxaa keliya ku fiicnaayeen waxaan wayna xaq dhoorayeen wayna dhahayeen yani sharciga siduu yahay baan maraynaa wax dhibaato ah ma jiraan laakiin adduunyadu wax walba waxay ku fiican yihiin sabarka sabar baan halaan ku soo gaaray sabar baan intaan yani intaan waa liibaanay markay ogaadeen inaan waxaas ahayn 4 sannadood wey baaris baa socotay degmo kastay tageen xaafad kastay tageen markay isoo ogaadeen inaan waxba ahayn waa isoo daayeen aad bayna u mahadsanyiin runtii anoo ugu baaqay weliba dowladda etoobiya wanaagga iyo kalgacalka iyo sharafta iyo karaamada dowladda soomaaliya codsigeedii ay u fulisay in kuwa kalena sidaasoo kale u soo dayso oo rag badanoo meesha ku xiran uu ka mid yahay cabdulaahi qaasim uu ka mid yahay maxamed cabdulaahi joon uu ka mid yahay maxamed axmed shire carab loo yaqaan uu ka mid yahay maxamed cali oo caan ahaa dhega weyne uu ka mid yahay maxamed cabdiraxmaan maxamed siidow uu ka mid yahay kulligood dhalinyaradii laga qabta bay meesha magaalada booli makaa'il oo meesha isku baranay xabsiga isku baranay oo ilaahay og yahay dad wanaagsan ay yihiin maxamed xasan shabeelow mideen ahaana ku jira maxamed aadan yar la yidhahdo lug ii gacan xoogaar wax ka ah oo iska xanuunsanaa adigu wax dhibaataa ma lahayn runtii dowladda etoobiya aad bay u dareereysay dadka sanadahan markaan joognay codsi baan jeediyey waxaa yidhi dowladda etoobiya waxaan ka codsanayaa inay kuwaasna soo dayso siday ii soo daysay waana u mahadnaqayaa baa yidhi waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee aad muddada xabsiga ku jirta aad ku aragtay maxaa ka mid ah waxyaabaha igu yaabka badnaa ee meesha aan ku arkay oo iga yaabiyey waxay ahayd dadaan isgaranaynin baan meesha ku bartay
waa nigeriyaan waa tanzaniyaan waa kenyan waa china waa netherland waa wadamada kale ay ka mid yihiin angola wadanka botswana wadamo badan oo afrika u badan ayaan horta meesha ku bartay wiilgay aan arki lahayn mid walbaba wuxuu isii nambarkiisa iyo taariikhdiisa wuxuu yidhi anigu xanaani jiray waa sheekaysan jirnay waa wada baashaali jirnay isboortigaas dhihi jirnay waxyaabaha badan oo hidaha iyo dhaqanka ayagaa samaynayay silsiladaha oo laga sameeyo geesaha lo-da iyo ayagaa samaynayay faraantiyada ya waxyaabaha kala duwan kuwan ma ayagaa ku sameeyey kuwan caalamka ka soko dalka soomaaliya ka qaato calanka soomaaliya wax kale ii sameeyeenoo faraantiyaal kale ii sameeyeenoo waxay ii sameeyeen alaabooyin badan oo cidda aan u geeyey gabdhaha walaalahayga aan u geeyey nigeriyaanka wuxuu yahay kan ugu shaqada badan maalin walba shaqay qabtaan waxbay sameeyaan soomaalida iyo kuwa kalena waxay ka shaqeeyaan farsamo oo dowladda etoobiya ay u furtay ay baranayaan industry ay baranayaan waxyaabo kala duwan boorsooyinka sida loo sameeyo alaabooyinka kale ee la qoro adigoo technica alaabooyin badan oo farsamada dhinaca sancada ayay bartaan qaar iskuulkay bartaan afkay bartaan etoobiya lahajooyinka waxbaa la baraa adigu howlo badan baa ka jiray etoobiya runtii xagga waxbarashadana way ku fiicnayeen marna ma ku fikirta maskaxdaada ma kusoo dhacda in lagu soo daynayo wixii ka dambeeyey markii safiirka soomaaliya u fadhiya etoobiya maxamed cali nuur iyo qunsulka guud ee dalka etoobiya u jooga soomaaliya cabdulaahi xaaji warfaa iyo gabadh la yidhaahdo fardowsa maxamed oo loo yaqaano fardowsa xagaafe ay igu yimaadeen xabsiga oo la ii soo saaray oo la ii keenay iyagoo xafiis fadhiya oo ay yidhaahdeen maxamed waxaan u nimid sidaan kuu dayi lahayn waa qaboobe saaxib baraf baa noqday naqa sana xirantaa markaa 4 sano xiranay 3 bilood markaa ma jirin dad ku yimid 4 sano tan iyo markaa xirneen xabsiga wax nagu soo booqday maba jirinba ilaa maxamed siyaad bare markii dalka uu ka baxay xabsi qoftaga u yimaadana ma arag marka waa taariikhdii ugu yaabka badeed waa markii ugu horreysay ku yimaadaan soomaali masalaysa calan iyo ciid iyo qaran oo booqanaysa xabsiyada dadkii uga xirnaa soomaali ah markaas ugu yiraan niyow madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha way noo soo amreen waxay nagu soo amreen inaan aragno caafimaadkaaga fiirino inaan dowladda etoobiya wada hadal yeelano in lagu sii daayo ayaa u nimid wallaahi saaxib waxay igu ahayd farxadtii ugu weyneyd oo haddee waxaa ka mid a farxaddaas habeenkaas keliya ayaa ahaa habeenaan jiifan buu ahaa 4 sano waxaan ku fikri jiray goor baad dhimanaysaa laakiin markaan kuwa arkay goor baad noloshii baa xasuustay dib inaa usoo lama kacliyey marka noloshu waa qaali farxad bay igelisay soo dhoweynta dowladda soomaaliyeed kadib maxaa dhacay markay ku yiraahdo sii daynana wax ka fiican ay dhacay oo waxaa dhacay jacaylkii aniga ay ii qabeen saxaafadda soomaaliyeed iyo noloshii aan ku sugnaa iyo sida bahda saxaafaddu ay geed dheer iyo geed gaabanba ugu kortay sidii aniga la ii soo badbaadin lahaa waayo 60% ardadeydii ahayd saxaafadda maanta jirta waad la socotaa idaacad aanan ka shaqaynin oo xamar ku taalo ma jirin ya waa idaacadda aan xamar ku taalo markii la furayo waxaa la jiray nin isyaano ah oo saxaafadda hore hala keeno banaadir baan furay stm baan furay waxaan furay soomaali weyn dashabeelle waa aragteen shanti waa aragteen waxa dhan idaacadaha dhan xamar midaan soo furin ma laha adaaba lagu badiyay idaacadaha waa tahay waxaan rabaa usoo laaban waraysiga waxaan rabaa maalintii lagu yiri waa lagu sii daynayaa waxaan malaynayaa warfaa qonsul warfaa iyo rag kaleeta inay ku yimaadeen maxaa dhacay maalintaa maalinkaa diismada ee la daynayey warfaa iyo horta iima iman marka anigoo labisanoo dharkii xabsigii igu jira oo u diyaar garoobay inaan aado kombyuutarka laga fiiriyo dadka waqtiyada la deeyo oo isdhahay dadkii ku yimid waa lagu daynaya bay kulahayeene bal goorta lagu daynayo meeshaa lagu qoraaye meel waxaa jirta la isku kaxay khamiistii oo laga daawo diismada anigoo isu diyaariyey oo sugaya 4 saac riboortka maya waa la imaanaya waa lagu kaxaynaya meeshaasuu arkaysaa anoo sugaya dadkii baxaya xilligoodii la kaxaynaya oo sidaa u sugaya oo iska fadhiya ayaa meediyaha waxaa laga sii daayay maxamed aweys mudey boqorka bartamaha waa in uu si deg dega alaabtiisa usoo qaataa waa la sii daayay aniga dharkii igu jiray ee aan rabay inaan wax soo baaro
كاليسبوكيسة دواجو ارتاسا وكل جاحي يعني تقسيمه لا بس بعتها كان ربع مقت كاليسبوكو كقاري وين فرو هذا جعل كساس بوجرا سحب ولا قاس بنسمي ولا كان أصاب حي بحيد شوقي حبض هذه مواد هنا باي باي ايوه واحد قدامنا واحد صاحبنا اجنبي جي كله افريكان ودن تشاينيز ما يسوي انا قلت ورياه ما وقوس سيجري وباشالين جري وديري جري يا تنس كويت وحلي وحير يسوق يا وأنا البسدير جري مرك التاريخ دي ويصبرين يعني waxay ahayn dad marka baxay ilaa gacanta laga soo qabanayo askariga soo dhacay banaanka saas loo subnaa ya waayo dad aan isjecelnahay ahayn 4 sano iyo baraad xirneed oo gad hoostiis ku jirtay waa soo baxday banaanka timid xagee wax ka bilowday yaa ku yimid oo ku kaxeeyay magaalada ku soo waday markii aniga la isoo kaxeeyay waxa la geeyay dawladdu waxay keentay Ethiopia maya meel la geeyo dadka ajnabiga waa migration meesha laga dhufiya migration ka la keenay migration marka la keenay migration ka waxa ugu yimid mas'uuliyiintii safaaradda marka waxa la yiri meel kale oo ka tirsan meesha amistanya la yiraahdo ayaa jirto dadka dhuufay la geeyo ajnabiga meeshii baa la geeyay waa la isoo dhaweeyay ya ninkii qunsulkii safiirku yiraahdeen waa kaasa halkan baa joogaysa caawo jiifanaysa waxaan ku arkay rag hortay la sii daayay aniga hortay la sii daayay ha oo la daayo muddo imika 6 bilood camal ah ka hor baa la soo daayay Soomaaliya ku kala soo jiraan xabsigii baa ugu tagay iyagoo wali ku jira wali bixin war maxaa dhacay ma anigu de inaan Ingiriiska ku noqdo ma doonayni inaan dalkayga imaadaan rabaa dawladda Ingiriiska waxay leedahay dalkii baasaboorkiisa haysateen aad ka timid ku noqda intaas intibaan waraade ma iska tagtaan baa dalkaas oo dawladeeda kiini ku noqotaan dhalinyaradu iska beysaan mogtahay inta waa aqliye kara waa aqliye iyagana waa kaasa Maxamed Shariif iyo halka dhaay Axmed Maxamed Cilmi runtii meesha sano jooga subaxii aynaada galabtii ayaa laga soo kaxeeyay airportka la keenay airportka marka la keenayna waxa la yiraahday diyaaradan laba qof ka dhiman buuxiya diyaarad Djibouti ku sii socotay oo la yiraahdo Sky Kenya Nairobi ayaa raacnay diyaarad aad u weyn oo 600 something qaadisay marka buu ka weyn ana bal naxay because wiligeed diyaarad noocaas ma raacin markay kacdo cirka gashay hada guuxeeda wuu yaraa laakiin weyninkeeda waxaan rabay kuwa iga horeeya fiiri markaa jiray inaan hal maalin u lugeynayaan mooday meeshuu fadhiya kan koowaad dhararkeeda waa yaabanahay Djibouti bay naga dejisay habeennimadii 8 barkii fiidnimo dabadeedna wax yar baan transit ku ahayn garoonka Djibouti saacadda markay 9 barkii ayaan soo raacnay diyaarad kaleeto oo laga leeyahay Indonesia waxaynu ku soo degnay dalka Kenya magaalada Nairobi visa ma aan wadan transit waxaan ku ahayn airportka halkaasaan jiifanay markaan jiifanay saacaddu markay ahayd 3 saqda dhexe ayaa waxa la yiri Muqdisho African Express waa inay isdiyaariyaan sidii baa tigidkii wixii loogu dhiibay halkii baa qusulkii soo ila socda warfaa sidii baa mataqaanaa ku soo aadnay dalka Soomaaliya Afrikaana soo raacnay halkan waxaan cagaha soo dhignay 12kii subaxnimo markaas maxaa dhacay marka waxa dhacay magaalada oo dhan waxay isku soo biyashubatay garoonka diyaaradaha iyo xigtii kharaabo waxa ka darnaa saxaafadii oo dhammaantood igu sugaysa garoonka diyaaradaha hadal cad airport diyaaradda markaan ka soo dego ayaga arkayna dhulka baa afgamba ugu dhacay markaas dhulkii ciidda qabsaday waxay ala lahayn iyo dal shisheeye waa cudur dareen culus ku joog iyo cabsi weeye ma ogtahay agtakii dul saarow inay tahay cadaabtii idinka ma qarsoone ciidii dhulkaagii aad ku caanamaashida calool furan ku soo noqo ilaaha ma hadale haddaan ku soo laabta dalkayga hooyo markaas saxaafadii hadan isaan lagu soo boodaya eheladii wixii kale oo jaqan hadda lama soo koobi karin shucuurta kaliya dhan maartay iyo biyi kaliya ku jireen waxay yimaadeen afkayga inay ka soo baxaan yani waan naxsanahayba meelaan joogan kala garan waay hadalku way dhibay markii dambe waa degayo nin walba wuxuu yiraahday ilaahay khayrka ku waafajiyay
dowladda etoobiyana waa u mahadnaqaynaa adigana waa ka waa timid haddee saxaafaddii oo dhan waxaan u mahadnaqay kaalinta ay ka qaateen mudane madaxweyne waxaa noo taagan far mudane madaxweyne waa ku mahadsannahay shirkan aan qabatay annaga rugcadaagii saxaafadeed annagana soo barbaariyey baa etoobiya ku xiran mudane madaxweyne waxaan kaa doonaynaa inaad ninkaasi wax u qabataan soo daysaan madaxweyne wuxuu leeyahay dadaalkiisii baa ku jirnaa ra-iisul wasaare hadda waxaad tahay ra-iisul wasaarihii soomaaliya ya xasan cali khayre far baa noo taagan oo farta maxay tahay waxaa weeye rugcadaagii saxaafadeedna soo barbaariyey maxamed aweys mudde boqorka farsamaha xabsiga ku jira 20 sano ka badan dad xukumo ku jira dibbi ma laha dollar ma dhicin dirbi ma jibin ciduu dibadda u diiday inay aadaanna ma jirin ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanaynaa niyad sami kalgacaliisa ama furan anigoo kugu soo dhawaynaynaa inaad noo soo daysaan rugcadaaga saxaafadeeda maxamed aweys mudde ra-isul wasaare wuxuu yidhi geeddan iyo geed gaaban baa u karaynaa anii madaxweynaha arrintaana tallaabaan ka qaadayna safaaradda soomaalida etoobiyana waan la hadlaynaa amar waxaan ku siinaynaa inay xufigaasi kaalin weyn ka qaadato badbaadintiisa adeertaas been ma noqone madaxweyne ra-isul wasaaruhuba guntigay dhiisha isaga dhigeenoo waxaan halkan ku joogo waa dadaalkoodii iyo saxaafadda uga mahad celinaysaa alla subxaana wa tacaala ka soko marka ilaahaygii untay baa mahad u dhaqayaa ka sokowna hadde farmaajo maxamed cabdullaahi maxamed waa baresidentaha soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya madaxweyneheeda iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadde xasan cali khayre waa nin reer magaalo ah anigoo ogo hay-ad caalam soo ka shaqeeyaa ogaa hay-addaasoo la yidhaahdo norway refugee geeska africa dhan bay xukumaysa guddoomiyuu ahaa maanta waa ra-iisul wasaareheenni waa gacan qabtay anigana waxaan leenahay saaxib kheyrkaan kaa qaadanaynaa ilaahay baa mahadda iska leh waa idin mahadnaqaya adiga madaxweynahaba waxaan u maqnayaa wasaaradda warfaafinta oo wasiirkooda hadda yariisow inta ka hooseysay agaasima ha noqoto maariya ha noqoto saxuufi ha noqdo farsamayaqaan ha noqdo bahda saxaafada kale localka ah ee dimuqraadiga ku shaqaynaysa dhammaantood mahad gaara u jeedinaya waayo waxay ahayn ragga aan maanta ku imid madaxooda halkan ragga meel kastii goor kastii wakti kastoo shir la qabanaya ku doodi jiray badbaadintayda ilaah baa wax badbaadiye ina maca alcusri yusran fa ina maca alcusri yusran waa tahay markaas soomaaliya timid waddaad ka maqnayd soomaaliya 4 sanood xirneed iyo barkii marka laga reebo 6 sano kale kasii maqnayd maxaa iyadana kala kulantay dee markaas waxay ahayd jacayl iyo dadnimo iyo dad badan oo dhoofaya canada australia america germany pakistan holland netherland london dee safaaradahaasba markay dadka baxayn anna meeshaan joogo australia sugayo ilmaan sugayo aniga dhalo ku maqan dalka australia kuwaasoo yihiin aabo dhaawac baa kugu yaale adoo xanuunsan baad ka timid muqdisho aabo dhaqsan kugu soo diyaarinayna dee wax kastaba bilaawi dhammaad bay leeyahay soomaaliya markaad timid hadda muqdisho markaad timid maxaad muqdisho kala kulantay laftirkeeda muqdisho waxaan kala kulmay san iga yaabiyo waxaa igu yaab badan ilaa hadda guriga walaashay waa garan waay kii aan ku dhashay waa garan waay guryihii aniga aan deganaa markaan baxay waan garan waay mooto ay waday oo 3 lugooley ah markaasaan waxaan sameeyey dad cusub aa wada degan meesha dadkii nuska hore u dhinteenba oo asxaabteen ilmo yaroon garanayn markaas waxaan leeyahay waraaye cabdiqaadir dulyar iyo gurigooda mataqaan waa soo dhaaftay aw gurigaas geedka weyn ku yaal waay geedba kuma ooli jirin goorma geedka baxay waxaan ku yidhi sidaas baa gurigii lagu geeyey marka taa waxaa kusinaysaa inaan aqoonba u lahayn magaaladii aan shalay ka tegey isbeddel ka dhacay waxaa kaloo isbeddeltaasi ka muuqda dhinaca amniga oo waxaad moodaa in amnigii soo wanaagsanaanayo oo waxaad arkaysaa dad wada burursan oo sheegaya inay mar walba ku dhawaaqaan jacaylka ay u qabaan nabadda fanaaniin heesaya oo madax bannaan baa arkaysaa oo ku heesaya waxay rabaan ku heesaya oo nabaddii dalkaan nahay calankii dalkaan nahay ciiddii dalkaan nahay waxay rabaan iska sheegayaan intan waxaa ka tegay iyadoo cid hadli karta aysan jirin waxa kasta ilaah baa watee u celiye marka saxaafadda goor waa kusoo biirtay saxaafadda waxaan kusoo biiray horta iskaa waxuu qabsaa waxaan ku bilaabay 1979kii iskaa waxuu qabsaa ku bilaabay waxaan soo socday tbistan ahaa tbista markaan ahaa barnaamijyada garaaci jiray 85tii markay ahayd ilaa 83dii waxaa aniga oo iska fadhiya barxadda weyn ee wasaaradda warfaafinta waxay leedahay meelo la fadhiisto geedo iyo waxaas ku yiilay anoo iska fadhiya oo iska liirsanaya waxaa soo galay wasiirka warfaafinta xilligaasi waxaa la oran jiray
maxamed cumar jees allah u raxmaday uu dhintay maxamed cumar jees oo gurisir saaran shufeerkii kuwada baa soo galay meeshaan fadhiyey buu agteeda soo istaagay markaasuu igu yidhi waryahe idaacadda iska socotaayee wax xiriirinaya anin lahayn maxaad u geli weydo shaqada udi weyse markaasaan ku yidhi mudane wasiir anigu shaqada ma lahayn dad kalaa iska lahaa markaasuu igu yidhi cid kastoo lahayd iminka dhaqaaqo gal barnaamijka iyo xiriirintii idaacaddu iska socota looma baahnee halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya wixii saaran ka deji wixii kala saar sugaana waxaan nahay mudane wasiir dee askariga meesha taagan iyo farsamada ninka haya haddaan amar la siinin nimaan shaqo ku lahayn ma geli karo anna waxaan u ogol lahaa weriye ma ahayno waxaan nahay teebiste inaan sheegay inaan weriye ahaynna waa ka aamusay isagii baa markaa igu yidhi igu yeer askariga meesha jooga askarigii baa loo yeeray waxaa la yidhi si dhaqsaa ninkan shaqadaha u galo hana idaacadda way socotahay oo kaligeed hadda ha xiriiriyo markaasuu yidhi anigu shaqo kuma lihi waan deyn karahay farsamayaqaan baa jooga igu yeer baa la yidhi farsamayaqaan la yidhahda baal doore inuu hadda dhintay liii sheegay allah u raxmade ayaa la soo saaray waryaa baal doore idaacadda iska socota waa maxay ninkan geliyo xiriiriyo ha noqdo hadda markaasaan galay baal dooriya markaa israacnay waryaa ada nin fiican hataa mogtaa maskiina iskeed iskaa ku shaqeeyeys beriga waa kana wasiirka amaraas ku sii shaqaa bilaabo haysa alxamdulillah waa helnay isaga waxaa u maleeyaa in amar aniga wasaaradda soo siisa shaqa aan galayo inay badbaadinta idaacadda socoto darteed aan shaqadan ku helayo mama oga markaasa baal doori waa mahadsan tahay hadda maxaa saaran idaacadda idaacadda maxaa saaran markaasuu yidhi gobollada barnaamijkaa saaran yaa socodsiinay dhaashan waayahana barnaamijkaa dhammaaday maxaa ku xigana markaasuu yidhi maxamed saleymaan iyo mogol saas miya ahaa heestee waaye arrimidu waaya markaasa waxaa yidhi waxaa intaa inoogu dhammaaday barnaamijkeennii gobollada waxaa soo jeedinayey maxamed faarax xalane dhaashane halkaad ka dhegaysanayseen waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya dhegeystayaal saacaddu imika waa 9kii oo gow ah farsamayaqaanku waa baaldoore xiriirintuna waa maxamed aweys mudey boqorka bartamaha dhinacii sugaanta ayaynu u jalleecaynaa waxaan idiin soo qabtay fanka baalishiisii codka boqoradiisii xaliime khaliif cumar magool iyo maxamed suleymaan tubec heesta halkudhigeedu yahay aramidu dhegaysi wacan oo wanaagsan heestaasaan ku bilaabay saaxib iyada ugu horeysa aramidu isooridan ma iban agtaydo anaan ku egte asalkuba jacaylku intuu ugubkaygu yahay een uurkayga gelin oogadaa ku sii fidin dadkii dhegaystay ee wariyaasha ahaa iyo wasiirkii iyo bulshadii maxaa feedback maxaa kaaga yimid aygii maalintii mahadnaq in la ii jeediyo waxaa markaa agaasimo ka ahaa idaacadda maxamed carab falax waxaana la igu soo casuumay idaacadda waxaana la yidhi ninkan isaga ayaa habeenkii oo dhan dadka maawelinaya joogta waxaa laga dhigay xiriirinta habeenkii halkaasaan ka bilaabay kadib maxaad ka qaban jirtay waxaan ka qaban jiray bandhiga reediyoga jimcaha barnaamijka heesaha bandhiga reediyoga oo wada maadaysa oo heesa ah ii dhahdoo dhan tiyaatarka ilaa mataqaanaa laga gaaro ii dhahda ay ka baxdo 3 galabnimaa soo geli jiray tiyaatarka goorma u wareegtay tiyaatarka waxaa 8 riwaayaddu maxay ahayd riwaayadu way badnaayeen waxaan xiriiriyey yaa u waqalay waqtiga yuusuf maxamed min lahaa waxaan u xiriiriyey abuur ebe oo ku jirtay waxaa yarka wuu yaraa ina yar buu ahaa yuusuf maxamed muumin marka riwaayadda uu keenaya u waqalay waqtiga waxaan ii dhahdaa markaan qabanayey idaacadda ka baxaysa waxay ahayd gugaagu 40kii ha gaara maahee 20kiina ha gaasira maaha waa garasho ee buksiyoon cidina kaa garbinayn yaa u waqalay waqtiga abwaanka da'da yare soo kacaya yuusuf maxamed muumin fikradiisii saas baan ku bilaabay marka waan ka bilaabay waxaan kaloo ka hadlay abuur ebe in laguma sheego abuur waana la yaab masiibada adduunyada iyadoo u macallina waa maadaysa adduunyada dadkuna way maalayaan abuur maxay tahay beenay waa run beenay raadkaa raacdaa kugu maqan waxaa iska lahaa dacar beenay waa run iska lahaa beenay raadkaa raac kugu maqan ka joog adiga mahay barre maxamed leentaa iska lahaa ma garat hagardaamada guurka haatan yaa ka mas-uula cabdiraxmaan qurbaawi baa iska lahaa taariikhdu waa buur badda aana celino
barya lama ilaawi naftaad baa xasoora bukaan uga maciinta ku beernaxayse hakadayn baryadada markaas wuxuu leeyahay baaduhay ladnaatee kalgacaylkan baasaad ma bogsiin karaysaa magaal iyo cigaal markaasuu leeyahay waxaad iigu baaqday ballantaadu fududaa beer la xawse weynaa beer la xawse agardaamada guurka haatan ka mujacnaa qabtay banaadirgii haddana maxaa kacaya waxaan qabtay kala saarka jacaylka asraarta jacaylka cadaabtii caashaqa galada caashaq shimaala shan u yar kibirkii beertaa karfan saaran jacaylka mashaakilkii jacaylka ya sad mala sariiglay damac aduun fal xaasid iyo faqiir waxalay shaydhaan buulow xidigtii isxujaysay afarnaaglow amar baa ku haystaa sharxii la tumayey sheekaa ka dambaysay xubigii la xumeeyey yaa xaalmarinaya cudur iyo caashaq keebaa culus naxtin iyo nasiib shiddo iyo shallaay gabadhii nikaaxii gabadhii naxtin baa ka dambaysay fanaaniinta ka waran marka aad soo saartay masraxa seenta shimaali axmed shimaali cabdullaahi zulfa maryan naasir shimaali magacaan u bixin waxuu ahaa jalaqsane shimaali axmed shimaali hadda wuxuu noqday jilacsane saaxiibow zulfana waa tuu falka ba iska dhaafay sacuudiga aaday zulfa wuxuu ahaa nin aad u fiican markaas aniga aan qiimaynayn bulshadana ugu jeclaa maryan naasir sidoo kaleeto killer nin la yihahdo dhintay hadda waa badnaayeen fanaaniinta aad bay u badnaayeen oo la soo saaray waa ballamey reer banaadiro barbaartii bilaneed ee baxsaneed waa isbaheysteen berigaan waa inoo bishaan axmed naaji waa joogay faadima qaasin alwaxmed waa joogtay doctor raafi iyo guriibkiisa ayaa iska lahaa heestan fanaaniin badanna waa la soo shacbixiyey banaadir saas bay ahayd adigu hees ma samayso weli marka aniga jaceylkayga dhabtaa heesta u dambeysay hadda socota ay ootaa ooyn adduunya waa dhammaatee heestaasa ugu horreysa hadda dadka ay barteen ha anaaba qaadayo duqowaana dayeysa doombiraayo taani ninkii la daraa waa duurka loo diraa nimca xasana ila qaadayso adduunya waa dhammaatee baariyo aweese aakhiraas heesii koleeyey fanaanka dhalan doona sheeka waa dhammaan waa dhammaaye ay oota shalikii ku shideeyey aashaarka looga siiba sheekadaas baa dhacday saaxib waa lay xamaa xoog ma lee helaayo ninba xaaladihiisa xaansha ugu talaylada ay oto aa hadlayso duqo waana dayeysaa doonbarey wataan ninkii la daraa waa duurka loo diraa aw fanaankii aan soo caanbixiyey gaawirow aw maxamuud xaaji cali gaawirow isagoo beeraley ahoo gaawirow degan maana xaajow naag layidhaha inay hadda dhimato malaha dhalinta kacaanka agoonta ayuub marko ayuu joogay waxaan u soo qabtay heesii diyaaraddii aad saarneyd gaawirow meel kastoo ay tagto hees bay ka qaadaysay heestan waxaa layaha gacaladeeda qabso midaan gayaankii gursigeedii u geysmarayey inay ugoyso gabiga tuurto magar allaaba guri samaad iyo gamood xalaal aan ku goolamayey hadday go-aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydii hay goolacday garta u daaya maxamuud xaaji cali gaawirow heestii gacaladeeda garta u daaya dhegaysi wacan oo wanaagsan laba gayaano gacmaha ishaysta dadka u garguurtaan bal maxay ka gurayaan hadduu galo nin gaawiisu aniga godobtii layga galay godkaan ku sugayaa macnaha nin baa la siitii u jeclaa kii layga rifow igambisay waa taasi guursay wayaas kii layga rifow oo asaga la yidhi isagaa wanaagsan igambisay waa taasi guurso gacaladeydii hay goolacday garsi u daaya waxaa ku xigay yacyacood imisaan caroodo ceeshka iyo fooraha sida ruux oryaanaan ku cutubay daraadda waa curada kori caambeex yartaan cudbitaan lahaa soo canays ma marin maxaan kaa cadgoystaa ama kugu cagaaga cudbiyey abbaayo maxaan kaaga caga gaawarow faraxsan oo kabanka tumanaya heesma heeska daran gaawarow markaana waxaan leenahay raaxada adduunyadu ani wayga raagto rafaad baan ku noolahay
radadaan ahayn baan cagaha isaga rogayaa roobaan da'in baan cirka aan ka raadshaa waxaan layla rabin baan hadba daba rucleeyaa sida ruux dhinto rumadii go'doo raran saaran baan reegeysanayaa ra'yi badan adduunyoy inaan raamo badaney hadbakii rasiqi weyn maxaad u daba ruclaysaa ruuga ugu aastaa kan kalena u rogataa ficiisa uga reebtaa ama soo rucley ama iga rogo rasmi igu sheeg ruquyoy walaalay ratib buuba oo raran haddii aan rag kula sidin inuu ridaya mogtahay markaasuu gelayaa raaxada adduunyadu ani wayga raagto rafaad baan ku noolay gayga hal kasta hees kastaba ka daran markan waxaan idin leeyahay caku feexda naagaha falowga iyo daruuriga filangweysadoodani ma fartuunadooda faalana allah yow laba isfiirsanaysa kuwa kala fadhiisho ka faa'iidaysa hadda meeqaa la isku dara oo kala tegi taabay calaalinaysaa waxaa leedahay kuwa kala fadhiisho ka faa'iidaysanaya waxay ula fadhinayaan faraska ugu joogaan inay kala faquuqaan kala faataxaystaan faham waaye anigu ha iska faraduglaysee faalla iyo jaceylkeed ma ka faraxashaa horta yaanan fududaan farta sooma ay qorin fariin beena inay tahay faaduma aanu dirataan waxaa hadda rabay ana u dhiibay oo weli heestiisii iyadoo nusa oo qaadqaadaya aan ka tegi heesta ismahaan ya jaagu inan yahay sida jowhar iyo luul ayaa lagu jidboodaa jaaga inan yahay sida jowhar iyo luul ayaa lagu jidboodaa gacmo jeela leeyey kubabkaaga joogiyo dhexda taaka lagu jaray eed moodi jeedaan markii aan jarleecaba waan jiriricooda intaasa ii joogtay hadda hadduu joogo meel kastuu joogo aan dhamaystirnaa ii yimaado ya adaa u sameeyaa isagaaba heesta u dambaysa waayba uga qaado ismahaan baa la yidhaha gabadha waxay ku dhaqan tahay muqdisho gabadha waxayd gabadh aada u fiican oo hadda kadib hadda baan rabaa inaan wax gursada haddii ilahay idmaado waxaas ma lihiyo iminka dee xabsi baan ka soo baxay nin xabsi ku jira iyaa gursanayay iminkaan rabaa inaan jecel raadiyo waata waan soo gabagabaysanaynaa marka maxaad rajaynaysaa hadda waxaan rajaynayaa caafimaad qab inuu ilaahay siiyo waxaan rajaynayaa walaalahayga daawanaya haddaan qaldanahay haddaan saxsanahayba inay iska kay cafiyaan inay xaq dhowraan waxaan ahaa walaalkood ka weyn amba ka yar qaarkood waa iga weyiin waxaan leeyahay niyad sami kalgacal iyo sacbo furan baa idinku soo dhaweynayaa war dalka waa dalkeenni waa dalkeenni annaga haddaan isdilno isdhacno isboobno isxasidno de wax noo dan ah maaha reer xamarka waxay yidhahdaan walaalkiisa karooro wadaweyna waaqlaa laga waaye waa ratiink wadaweyna nin walaalkiisa ka tegayo asaga keliya wax isku raba de dan maaha walaalkaas soo dhaweyso wax la qabo ya makasno yani nin baa markaas wuxuu yidhi waa laga siiya yidhi waa la garaacaya waxba layma qabto markaas wuxuu yidhi minii muufa maqaayi lay mudaayo hadda muufada marka la cunaa waa maqaayada waa saalanta waa dalbanaysaa mugta sidaasoo kale laga dhigayo yidhi minii muufa maqaayi lay mudaayo calayna wa calayka ciid mubaarak waa soo gabagabaysanaynaa guud ahaan daawadayaal waraysigii koobnaa aan la yeeshay maxamed aweys mudday boqorka bartamaha intaa ayaan kusoo gaabinaya